لغو مشغول. كنت أنا هذا اللي يقبل هذا ما شاء الله. سمع الحمد لله رب العالمين. أنا فرحان. مسعود علي أدوين. Thank you. marka hore maxaad oran jirtay kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada inaga daawanaysa idilkiinba halka aad nagala socotaan waa barta youtube-kaan ku leenahay ee Soomaali YouTube waxaana jananka youtube-kaan ku leenahay aad ka daawataan barnaamijyo iskugu jira arrimaha siyaasadda dhaqanka fanka iyo weliba arrimaha bulshada haddaad nagu cusub tahay gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan macluumaadka aan soo gudbino haddaad saaxiib nala tahayna waad ku mahadsan tahay saaxiibtinimadaada fadlan muuqaalka la gareey lana sii wadaag saaxiibadaada wixii fariimahana qaybta hoose nagu reeb ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryeynaa cid walboo leegaraysa in umuurahooda uu sahlo ilaahay waxaan weydiisanaynaa dhammaanteenba inuu cadaabta uu naga xureeyo adduunkana bashbashii barwaaqo uu na geliyo allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan fajcal umuurana wa umuura almuslimiina kullaha sahla rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alqaasiriin allahuma laa maanica limaa acdayta walaa mucdiya limaa manacta walaa qaada ilaa qadayta ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاصرين إله واحد ما أنتنبا magacyada ada wanaagsan aan kugu weydiisanaynaa naxariistaada adduunyada waliba mid aakhiro idhamaan inaan umuuraheena ilaahu aad noo sahashaa Allahu la ilaha illa huwa arrahman arrahim almalik alquddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إله قفل بوم وقالك لا يقرأ إله أولاد بدن وبارئ أسي إله أذان كويدي سننا إله أولاد أنت أولاد لهنا إله أولاد وبركة وقد كوا بارئة وعن صومالي إلهي أنك كبر يناين وقليو بشي برواقو إلهي نددك صومالي عليسك وكدو القادو وعن دمانتين إله أنك كويدي سننا وأن كما أنقلنا كوا شرطة دباتة إلو قوية إن الأرض معسان وحي شرع ودباتة ولو قوية وينو ملاقيان إلهو كعلي haddaba waxaan eegi doonaa fanaanka mursal muuse iyo xaaskiisa cusub hodan cabdiraxmaan oo dhowaan gabaree u dhashay ayaa ku jeesjeesay fanaanada qadra saliima kadib markii mursal muuse uu ka hinaasay jaceylka cusub ay samaysatay qadra saliima iyo weliba u bixisteeda dalka Canada kadib markii mursal muuse uu ku hongoobay afiisihii Mareykanka uu daneynayay in hodan cabdiraxmaan ee u soo saarta kadib markii madaxweynaha Mareykanka Trump gabi ahaanba uu joojiyay dadka Soomaalida waa dalal Soomaaliya ay kamid yihiin inay fiise ay ku galaan dalka Canada waxaana dalalkaasi kamid ah Soomaaliya Iraq Syria iyo waliba dalal kale kuwaas oo kamid ah dalalka rabshadaha ay ka jiraan waxaana qadra saliima dhawaan ayadii waliba afar caruur ah oo ay u dhashay ninkeedii hore mursal muuse ay ku sii jeedaan dalka Canada kadib markii fiisaha dalku galka ay dalkaasi ay heshay oo una u dacwooday ninkeeda cusub oo dhawaan u qaadi doona dalka Canada kaas oo lagu magacaabo Maxamed Hanad waxaana wararka intaas ay sii raacinayaan in qadra saliima processkeeda uu soo gabagaboobay sanadkan hadda dhalanaya bishiisa labaad intaan la gaarin ay ku sii jeedaan dalka Canada taas waxay madax xanuun ay ku riday fanaanka mursal muuse waxaana uu ka seexan waayay arintaasi taas oo keentay in dhaga hadal uu ku soo qoro bartiisa Facebook iyo waliba alqaab kala ah kadib markii dhagartii iyo waliba hawlihii ay u maleegeen qadra saliima iyo jabka ay u geysteen mursal muuse hodan cabdiraxmaan qadra saliima uu ilaahay uu kaga kaafiyay isla markaana uu u furay faraj qeyr qaba iyo waliba wado ilaahay uu ku geenayo dalka Canada nolol cusubna ay ku samaysanayso qadra saliima oo dhowr mar dhabar jab xun uu geystay fanaanka mursal muuse oo uu haysay afar caruur ah taas waxay keentay in codad qarsoodi ah laga duubo hodan cabdiraxmaan iyo waliba mursal muuse kuwaas oo xamanaya fanaanada qadra saliima isla markaana waxaa la sheegay in xaflad ka dhacday magaalada Hargeysa dhaga hadal xun ay u geysteen hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse fanaanada qadra saliima laakiin codka sirta ay ku xamanayeen ayaa waxay ku sheegeen in ay qadra saliima ay tahay qof mugudubta isla markaana aan hor u socod lahayn waa sida hadalka ay u dhigeen mursal muuse iyo hodan cabdiraxmaan codkaas oo dhawaan aan soo gelin doono barteena YouTube-ka waxaa ka muuqda in mursal muuse uu soo gaaray jab xoogan shalay waxay bartooda Facebook ay soo wada dhigeen mursal muuse iyo waliba
hodan cabdiraxmaan sawir lala yaaba halka mursal muusena uu ku soo qoray bartiisa facebooka yaan lagu mashquulin nolol cusub ayaan samaystay laakiin taas wuxuu ula jeedaa kolkii hore muusan soo qori jirin laakiin wuxuu ula jeedaa khadra saliima nolosha cusub ay samaysatay iyo weliba aadisteeda dalka Canada uusan ku faraxsaneen mursal muuse oo ku dayacay 4 caruur uu dhalay fanaanada khadra saliima uuna ku furay wuxuuna ka raacay in adeertiis hodan cabdiraxmaan haddaba mursal muuse maxaa ku qasbay in xaaska u dhashay 4 caruur uu ka doorto xaas aan caruur u dhalin laakiin dhawaan gabar u dhashay hodan cabdiraxmaan Mareykankana degan halka afadiisa caruurta u dhashay ay wada joogeen magaalada Hargeysa waxaa mursal muuse garab weyn siiyay qoyska khadra saliima intay isqabeen ayadoona 4 caruur dhashay ay soo koriyeen qoyska khadra saliima oo la sheegay inay yihiin qoys ladan waxaana fankiisa gacan weyn ka geystay fanaanada khadra saliima oo ku dhiirigelisay inuu fanaan noqdo isla markaana hiil iyo hoo la garab istaagtay kadib markuu caan baxay 4 caruurna uu ka dhalay khadra saliima wuxuu ka doortay fiisa Mareykanka waa fiisaha dalku galka Mareykanka darteed inuu u guursado hodan cabdiraxmaan laakiin gabi ahaanba arintii ayaa waxay noqotay mid been abuur ah oo aan soconaynin kadib markii fanaanka mursal muuse uu ku xumeeyay madaxweynaha Mareykanka Trump oo soo saaray war ah in dadka ka imaanaya dalalka Soomaaliya Iraq Syria iyo waliba wadamo kale inaysan Mareykanka ku soo gali karin fiisaha dalku galka waxaa taasi dheer hodan cabdiraxmaan dhankeeda ayaa waxaa qalqiil uu ku jira sharciga ay haysato oo loo yaqaan transfer documentiga ama sharciga yar ee aan lagu aadi karin dalalka qofka dalka uu ka soo jeeday magangeliyada laga siiyay hodan cabdiraxmaan ayaa waxay dhawaan aaday magaalada Hargeysa ayadoona muddo dhowr mar ah magaaladaasi booqatay waxaana sharciga ay haysato uu yahay mid ka yar 5 sano waxaana lagu muteysan karaa qofka dalkii uu ka yimid ee Soomaaliya ama Syria ama Iraq hadduu aado inuu waayo sharciga yar ee uu haysto hodan cabdiraxmaan ayaa markay aadayso Soomaaliya waxay martaa dalalka Kenya iyo Djibouti halkaas oo ay ku dhaafto baasaboorka yar ee dalka Mareykanka dabadeedna waxay ku socdaashaa baasaboorka Soomaaliga waxaana qatar ku jira ama qatar ay ugu jirtaa waqtigan in lagala noqdo sharciga yar ee Mareykanka maadaama ay duubto fiidiyoyaal badan ayadoo joogta magaalada Hargeysa waxaana qatar ah haddii immigrationka Mareykanka ay ka warhelaan arintaasi in laga soo celiyo garoonka waa garoon walba ay ka degto dalka Mareykanka waana qatar weyn oo xagga sharciga ah oo soo wajihi kara hodan cabdiraxmaan hodan ayaa la sheegay dhankeeda in cabsi weyn ay soo wajahday oo ku aadan in sharciga yar ee Mareykanka in lagala noqdo Soomaalida waxay tiraahdaa god ha qodin haddaad qodidna ha dheereenin inaad ku dhici doontid lama oge taas waxay aan ku keennay hadda khadra saliima waxay heshay fiisaha dalku galka Canada halka hodan cabdiraxmaanna qarqay u saaran tahay inay weyso baasaboorka yar ee Mareykanka ee transfer documentiga loo yaqaan waxaana sidoo kale intaasi sii dheero mursal muuse gabi ahaanba waxaa meesha ka baxay hankiisii ahaa inuu Mareykanka aado kolkii horena uu u furay afadii u dhashay 4 caruur isla markaana uu kaga raacay hodan cabdiraxmaan si kastoo hadda hodan iyo sidoo kale mursal ay baraha Facebook iyo Instagram ka ay u soo dhigaan sawirro iyo waliba dhaga hadal ama cod qorsoodiyaha laga duubo waxaa hadda muuqata in ay soo kabsanayso khadra saliima iyo waliba caruurteeda ay u dhashay mursal ayaa la sheegay in caruurtiisa uusan siinin wax biil ah kolkii horena waxaa biili jiray qoyska khadra saliima oo wali biila waxaana uu ahaa mursal aabbo kali ah oo protocol ahaan aabbo u ah oo ilmahaasi dhalay mase jirin wax dheef ah oo ilmaha ay ku haystaan iyo waliba xaaskiisii khadra saliima ayadoo taasi ay jirta ayaa khadra saliima uu dhabar jibiyay una lugooyay waxaana dad badan ay ku tilmaamaan khadro inay tahay gabar afgaaban asluub badan isla markaana dhoorsoon ayadoona dad badan oo taageersan ay sheegayaan khadra saliima in mursal muuse uu geystay dulmigaasina maalmaha ka mid ah uu ka soo bixi doono
waxaana taas hadda hordhaceeda waxaa hadda laga dareemayaa Qadra Saliima fiisaha dalku galka Canada ee heshay iyo waliba nolosha cusub ee hadda ay samaysatay guurka meherka ka dhacay Djibouti oo ay ku guursatay ninkan hadda u qaadaya dalka Canada. si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii dambe fanaaniinta hablaha ay sameynayeen inay guursadaan ragga haweenka qaba. waxaa ka mid ah fanaanada Nasteexa Indho oo dhowaan London ka afduubtay nin qabay haweeney dhowr caruur ah u dhashay ayadoona haweeneydaas ninkaas uu furay uuna raacay Nasteexa Indho sida Hodan Cabdiraxmaan oo ay ku samaysay Qadra Saliima eena ka dulqaaday ninkii 4 caruur ah ee u dhashay ee Mursal Muuse. dad badanna arrintan aad bay ula yaaban yihiin.